السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها يو وحلقة الشناد هي كتابك الفوائد هي كلمات كأني إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هنا أنفعه خالصا لوجهنا الله نوردقه. فائدة الشناد أو شيخ ابن القيم كتاب كيس الفوائد وكل شيء وطريقان لمعرفة الله إلهي سبحانه وتعالى أقونتيسا وحلقوا برتها طريق مديوى طريق التفكر إلى مخلوقاته ومفعولاته إن لقى فكر وحي إلهي أبوري إيا وحا سمية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب مركضتك عقلي له فكريا إلهي وحو أبوري اختلاف كهبينك يا مالنتا أي فيرين أيان إيا وحيابه إلهي أهيسي قيبت لبعدنا والنظر إن لفيريو في آياته يتدبر آياتك إلهي سبحانه وتعالى تدبرنا لو سمعيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن مرك آياتي مشهودة هيدو لأركيي يتيم مسموعة هيدو لمقليي waxay dhalinayaan in Ilaahi subhanahu wa ta'ala qofku sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo awoodiisaba uu garto haddaba faa'iidada lixaad oo sheekhu soo qaaday waa wax la yiraahdo al-mahallu la yaqbalu diddayni mahalka waxa la yiraahdaa waa qalbiga salada u fiirsada qalbigu laba shay oo iska soo horjeeda ma qaado waxa la yiraahdaa diddani la yajtami'ani fi makanin waahid laba shay oo iska soo horjeedaya hal meel kuma kulmi karaan haddaba almahal oo qalbiga wuxuu sharti u yahay inuu wax qaado in laga firaaqeeyo laga nadiifiyo laga kilin gareeyo wixii kale ee xumaa ee ku jira in laga bixiyo tusaale haddaan soo qaadno qalbi baatil ka buuxa xaqu ma galaayo qalbi i'tiqaad iyo wax kala jeceli maxabada ilaahay ma galayso طيب sidaasoo kale insaanku haddii uu ku mashquulo inuu ka hadlo wax xun un afkiisa uu ka soo baxo wixii fiicnaa afkiisu qaban maayo jawaarixda iyo xubnaha haddii xubnahaagii aad u adeegsato wax xun mar walba taacada ilaahay uma khuduucayaan dadkan heesaha iyo waxyaabaha ku jira ee maanta dhan afkoodii carabkaagii haddaad uga barto inuu hees 24 saac u hayo dikriga ilaahay geli maayo marka sida xarakatul lisaani rasuulkuna li an yamtali jawfu ahadikum qayhan khayrun lahu min an yamtali shi'ran wakilaha yani shi'rku waa qaybta xun oo hijaaga oo dadka lagu caayo oo tilmaamaha dumarka iyo waxyaabo aan jirkii qofka lagu sifaynayo taa inuu ka buuxsamo waxa kaaga fiican qeex iyo malax iyo qashin inuu ka buuxsamo ayaa ku dhaami lahayd marka sidaas daraadeed waxa dareemi xubinka shayga fiican hadduu ka maqan yahay shay xun ayaa booska isaga buuxinaya kadalika alqalb walalayaal wuxuu ka buuxsamaa marka qaarkood shaki iyo shuhbo ayuu ka buuxsanaa iyo khayaalaad iyo waxaan jirin iyo culumta aan wax anfacaynin nafteeda isagoo oo qalbi waxa ka buuxsamayna quraanka ilaahay iyo diintiisa iyo cilmiga naafica uusan boos uusan ku lahayn ilaahi subhanahu wa ta'ala rasuulku ducadiisa waxa kamid ahayd allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala waxa kamid allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha waxa kamid ducooyinkiisa allahumma ya muqallibal qulubi ثبت قلبي على دينك وحكم هذا اللي إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف مرك قلبي كان وجد قدوما إلهي ثبات في دين الله نصيه دين تسنى الله نقصه وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته